السلام عليكم أصحاب جنالكي ku xiran asxaabtayda say tihiin say ku baradeen say ku horgasheen asxaabtayda qaaliga idin salaamaya salaan qaaliya hawadayda soo marinayaa meel kasta dunida ka joogtiin I hope inay idin wacnaato idin wanaagsanaato maxaan lahaayay hadda igu cusub tahay fadlan subscribe saar channelka hadda igu soo laabanaysidna soo laabasho wacan waa ku mahadsantahay saa channelkii ugu xirantaa u fiirsatid asxaabtayda maanta waxaa idin wadaa laba sheeko mid funny ah iyo mid maxaan lahaayay serious ah mid horta waxaa qamar sugaani rabnaa inaan ka balaarin ma fahanti qamar sugaani waxaa lagu qabtay maxaan lahaayay he is caught in the act English ku aqaana Soomaali waxa uu dhahay qofka markii act as wax sameeyna lagu qabto dhalinyarada nolosha ku hayaan ay dhahaan the funny clip laga hayaa arba in idin tuso ayo some things that he said or funny as qamar sugaani rabna inaan ku shidano ma faadada taqaan video la share garay also arinta series ka araba inaan ka hadlo waxa waaye gabar oo Soomaaliyeed oo New York degan oo maxaa lahaayay cunug 12 jir gabadh waxa labaatan Nuurta Maxamed allaha maxaa lahaayay kalibarta waxaan hayaa oo news ka laga soo daayay Mareykanka holding a mother accountable for out of control criminal behavior by her child. It's something police have been reluctant to do, but it just happened in Utica. A rare arrest, and police did it to prove a point and get other parents to exert more authority over their children. This week, police arrested 36-year-old Nutro Muhammad. Authorities say her 11-year-old son has been involved in at least 4 felonies: robbery, fire at a Walmart, stolen cars, and more. Because of his age, police say they can't charge him criminally. So they've turned their attention to the mother. gabadhan Nuurta Maxamed allaha waxay dhashay cunug 12 jir ah waxa la cunugii asii saaxiibkiisa 12 jir ah ayaa waxay sameeyeen dhacitaan waxay dhaceen gaariyay xadeen gaariga inta qaadeen waxay tageen dukaan supermarket oo Walmart kala dhaho Mareykanka ugu weyn meel kasta ku yaala anaga xataa agteena ku yaala intay galeen dhaceen iyo waxyaalo badan dhacitaan ku saabsan ay sameeyeen marka dawladda Mareykanka marka ugu horeeyay waayay oo waalid la xiro gabadhan ugu horeysay miskiinta waa gabar yar waa 36 jir ah single mother ahayd tinka caruurta kaligeeda haysay maybe way shaqeynaysa shaqo ku maqneed cunugan uu xiro iska sameynaa ma fahanti gabadha wiilkeedii waxa la dhahay dhicitaan oo ka bixi waayay gaari wuxuu xaday gaarigiisu u daraab gariya la yaaban yahay iyo wuxuu xaday alaabad badan uu xaday asii wala saaxiibkiisa dhicitaan badan ay geysteen marka dawladdu waxay dhaheen waxaan waa ilmo yar ma xiri karno waxaan jaaj gareynaynaa waalidka dhalay ma fahanti hooyadiisa saa loo xiray gabadha hadda waxay ku jirtaa xabsigeed joogtaa aada ugu xumay walaa gabar Soomaaliyeed meesha ka dhacaysa falkaana waa New York it's amazing what Soomaali badan New York degan Soomaali badan Buffalo degan laakiin meesha tuulo kala waa atuqaaga miyamugo something like that allaha New York si fiican ma kala aqaanin laakiin aada ugu xumahay walaa bilaa hooyooyinka single mother-ka wiilasha kala tagaan nimanka xataa caruurta idaniineen wiilasha Soomaaliyeed gabdhaha markay furaan iska daneysanaaya ma fahanti dhibaato saan oo kala 11 years gaalada macquul la noqon weyse cunug 12 jir ah inuu dhicitaankan saa u wengeysto gabaarida xataa iska kaxeeyo falalkan saa u wengeysto cunug maxalaay 12 jir ah la yaaban markay maxalaay waxa uu sameeyay dambigiisa aad u weynaa maamadii la qabtay idoo shaqeynaysa shaqo joogto xabsi lagu tuuro ilmahan laga qaatay ma fahanti aada ugu xumaaday gabadhaas ilaaha u dhibdhaamo soo duceyno insha Allah faatixada isku dardarno insha Allah ilaaha u dhibdhaamo insha Allah laakiin caruurta walaa bilaa wiilasha Soomaalida ma aragto wadamada Mareykan joogo meel kasta dunida ka joogan nimanka Soomaalida hadda wiil Soomaali tahay ilaaha ka baqsalaadku ilaaha ka baqooyada ka duceyso lugaha ka qabso wax baro shaqo sameyso shaqo awooro wiilasha Soomaalida aad loo dhib sheegtaa meel kasta jooga wadankiina way naga soo burburiyeen odayaashii waaweynaa kuwii yaraana ma koritaankoodana waa lagu dhibeysan yahay wallahi bilaa talaa wallahi bilaa I don't want ina wiilasha Soomaalida ku socdaan Suuriya daawil tahay laakiin
I don't know sanadadan wallahi bilaa dhibaato le dadka bixiyo la ilaa dhibno ma geysto ilaahay isii wiil alxamdulillah I have 2 girls and naftiyo iska rabaa wiilna like I don't know how I'm gonna raise a boy sometimes hada alxamdulillah deeqo ilaahay wiil ku siinin sometimes waxa la istaghfar ilaahay isii dhahan baan marka insha Allah gabdhaha wiilasha haysto soo duceynaa wiilashooda Allah u dajiyo Allah oo naajiga dhan dhibka Allah ka saaro insha Allah asxaabta waa ka gudbinaan gabdhan walaasheena dhibaataysan dhibka haysto iskaga duceynayna ilaahay ka saaro ninkii qamar sugaani ahaa asxaabta heestaad sleeping ma fahanti qamar sugaani aniga sheekeeyo qamar sugaani dhowr sana fiirsanayay I've been knowing him since uu soo baxay heestiisa ugu horeysa soo baxay fiirsan jiray wiilkaas horta markay ugu baagaaraysa wada joogeen he was nice gabadha kale markuu guursaday he was nice markay baagaaragsan kala tageen gacmaha abataadka u furmay ma fahantay I don't know if something oo bad ee bartamiya sorry baagaaragsan hadday sheekada maqlayso video hadda ka hore asigi iyo baagaaragsan isla heesayaan oo u qabo Rayaan Bajaaj arkay oo wuxuu sameynaa waxyaalo fildara ama aragtay gabadha ugu baayo ku dhigay garbo ka taawanaa meel ka taawanaya ma fahanti xataa Rayaan way ka soo falcelisay so waxaas waa normal amba exyadii Rayaan Bajaaj miskiin waa mugtay waxay dhahday ani exyadeeda waa la sheekaystaa exyadeeda waa la hadlaa it's not about this guy is touching this woman fahanti uba aragsan like si faldaro u taabanayay bas hugging her waa two exes isku imaaday dadka Soomaaliyeedka waxyaalo badan normal noqday fahanti so sheekadii he normalized inuu naagaanba kula heesaya oo taabta because gabadhan uba aragsan it's okay with her she's letting him okay wuu baxay Jabuuti uu tagay heesu ka qaaday maanta weekend Jabuuti gabadha Amiira Qurux ayaa maxaa horta strong woman saasa lagu gartaa gabadhan Amiira Qurux walaa bilaa maasha Allah ani waxaan dhilayaa maasha Allah congratulations inay maxaa nafsadeeda ka adagtay dadka tustin fahanti wuxuu ku sameeyay fiiriya markaas haddana farcelin kala fiirsanayna Oh my God 5 times oo ku taraagareynaa gabadhan jirkeeda inuu taabto saas uu qabto jahalka waxa caroon uu saas gacmaha ugu jijiido publicly marka 5 mar oo wuxuu taraagareynaa inuu gabadha jijiido uu gacmeeyo ilaa xad ay ka dhahdo no brother don't try it amal inay dhahdo markaasuu gadaal ugu degayaa maxallaha Amiira Qurux walaa bilaa maasha Allah Amiira Qurux halkaana ka amaaniyaan gabdhaha Soomaaliyeed and even hada heesaya tahay ama hada actress tahay ama hada maxalla YouTuber tahay sideedoo kale intay in maxalla self respect aan barano insha Allah Allahna kaso because you truly have to respect yourself sometimes some people they will try it on you maxalla waxyaalaha rabaan they will try on you maxalla just to show other men that gabadhan qurux badan aan taabanaya this is how she is value inay ka dilaan because hadday ku arkaan rag kaleetay adigoo ninkaasas ku juqeynayo ku taabsanayo ku cantugsanayo waxaa dhimanayo qiimahaaga dhimanayo value qiimaha waa marka xataa asagoo ku rabin xataa maxalla inuu iska taraagaray inuu qiimaha hoos u rido kaleetay ha ka yeelina walaa bilaa marka arkay videogan waxaan oh hell no I have to show it to my viewers dadka i fiirsada ma fahanti he got away with a lot of things aniga I've seen him asagoo ikraan caraale taawanayo I've seen him asagoo taawanayo maxalla ugba aragsan gabdhaha dhan qamar gacmaha u furan ma fahanta qamar sugaani qof muslim baa tahay ilaa ka cabso wiil Soomaalina waa tahay ma fahanti gacmahaaga ka adkow maxalla sharaf isku yeel I know single nimo is hard anaga single kama dhigin adaa xaska ka oroto dhahda waalidtaaga hoos heeso soo qaada ma fahanti so bro inta anaa kala ka helaysid control yourself stop being
trust too much trust iska daa marka asxaabta waa idin salaamay ala saaro in ay idin soo hada videoda ka heshay fadlan like igu dadaal insha Allah ay subscribe waa idin salaamaya video gisinta ku kulmayno khayr ay rajeynaya ma salaam bye